kusoo dhawow Qaraax Tube fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. taageerayaasha kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa heli doona war farxad leh kadib markii laga aqbalay racfaankii ay gudbiyeen kadib markii AC Milan laga saaray inay ciyaarto tartanka Yurub labada sano ee soo socota balse Milan ayaa maxkamadda la yiraahdo CAS u gudbisay appeal waxaana laga aqbalay hadda racfaankaasi. Rossoneri ayaa hadda loo aqbalay inay ciyaarto tartamada Yurub iyadoo xil ciyaareedka soo socda isku diyaarin doonto tartanka Champions League. Milan waxaa lagu qabsaday iyadoo xil ciyaareedka soo socda isku diyaarin doonto tartanka Europa League. kooxda kubadda cagta AC Milan waxaa lagu qabsaday sharciga dhaqaale wanaaga kadib markii ciyaaryahano badan ay soo iibsadeen. 4 July 2018 AC Milan ayaa appeal soo gudbisay ugu dambeynna maanta ayaa laga aqbalay appealkaas oo maxkamadda go'aano badan ka soo saartay waxaana Milan la sheegay hadda inay ciyaari karto tartamada Yurub. waad ku mahadsantahay daawashada videogan fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad subscribe mahadsanid.